good session kiina ugu dambeeyay waxaan ku practice gareynaa of course back tracer iyo JRB lab kiina hor sidaan oo ahay right this lab marka hore waxaan ku fiirinaynaa router 1 markii aan joogo waxaan rabaa inaan gaaro loopback 4 waa networkeena caadiga oo aan maalin dhabeed habeen dhabeed aan sameysanay okay so waxaan rabaa markii aan joogo R1 oo aan rabay inaan soo gaaro this loopback wadadaan ma ii noqonaysa successor mise wadadaana ii noqonaysa successor ma fahmay see aan u fiirinaynaa okay good so R1 aan galaynaa marka koowaad okay kan aan iska kaasano ogaada numberka rabo inaan gaarayaa waaye 4 xooga 4 saarina forget about everything else okay 4 waxaan rabnaa inaan ogaano matrixkiisa marka waxaan ka ogaaneynaa inay inta tahay best path ama inay inta tahay best path okay arona galena waa weyneynayna marka ugu horeysa waxaan leenahay enable then show ib root waa meesha ugu horeedo adiga aad fiirinaydo because waa qariiradaana hadhow topology laga qaadanayo intra lena target keena yaa waa anaga network 4 so of course network aan rabna inaan gaarno okay 4 a target keena way so inta waxa ku arkaynaa nooca routing protocol isticmaalayna inay tahay D ama EIGRP network aan baranay oo nala soo advertise gareeyay then maxaa arkaynaa administrative distancekiisa kadibna maxaa arkaynaa matrixka kadibna maxaa arkaynaa meesha aan ka baranay okay good I know indihiina fiican inaad dhahaysaan ustaado eeg router 1 aad joogtaa network 5 iyo network 4 labadaba waa isku metric address yes it can happen okay see ku dhacay key values idin galaya laakiin ma ku dheeraanayo okay 5 intee ka bartay 20.2 ii haya waa idin weydiinayaa 5 intee ka bartay 20.2 عفوا أفر وحنا كبرت 20.2 5 intee ka bartay 30.2 back tracer ka aadna okay kana cancelo okay number kan afar markii aan joogo R1 selection ka R1 markii aan joogo network 4 waxaan ka bartay 20 area dana ka bartay so 20.2 aan ka bartay markay shan oo inta taalo R1 markaa intee ka bartay 30.2 su'aasha isweydiinayso waxay tahay how come labadooda isku noqdeen isku matrix why isku matrix ka noqdeen laba number oo kala duwan waay anaa si sahlan kaaga jawaabay waxa sameynay interface card maxaa waa gigabyte kana maxaa waay waa gigabyte okay let's go on show ib interface g0/0/0 enter day okay inta maxaa ku jiro 20 ku jirto hoos u soo daadeg waxaan rabaa wixii aan soo arag inaan fiirino maximum transmission unit ma u baahnin soo daadeg ila fiiriye bandwidth ila fiiriye pw ila fiiriye meelahan okay mujadan pw bandwidth ma arkaysan and I don't see it bandwidth okay let's say show run interface maxay show interface g0/0/0 asarabna inaan aragno yes si qaldana haday u qormaya okay so interface keyga waa kana description kiisa u jeeda target keyga ila fiiri marka maxaa arkaynaa pw inay tahay this abr delayna inuu yahay this number okay reliability inay tahay this number load kiina inuu yahay oo sending ka iyo receiving kana inuu sidaan yahay malfahma
total bandwidth keygana linkiga bandwidthkiis maxaa waaye 1000 inta meesha godkaana maxaa ku jira 20.1 okay 20.1 waa aragnay 01 hadaa gelinana same maxaa ku jira isna 30.1 maxaa waaye 1000 10 255 over 1 then reliability gaara 255 meesha maxaa kaaga muuqda marka linkigan iyo linkigan inay yihiin same it means k value inta aan kusoo baranay let me go on k value inta kusoo baranay aa meesha ku jirto maxaa waaye k1 oo loadkii bandwidth lagu dhuftay k3 lagu dhuftay delay lagu dhuftay then 256 then waxaa noo soo baxaya xisaabtaana noo soo baxay mila fahanteen inta sababta r1 4 ib root markaa dhahdaa fiiriye 4 iyo 5 ba u yeeshay same metrics yaana fahmin inta وفعنا لكن هذا لو جيجا بايت كده حريم أذن جيجا من جيجا بايت حريم من أنا كحنين بس بدلها. Yes, of course, بس بدلها. We can do it. Okay. Even إذا كنا في عدي أن بدله. See interface G0/0/0 أنت محقق قرن فيريا. أنت لقى برتة. قلت لقى برتة موجودة. So G0/0/0 أقلنا. Let's say bandwidth 64. انت maxaa aragtay neighbor is down then neighbor ku soo kacay okay and remember G0/0 ina wax ka bedelay so hadaa yiraahdo show interface G0/0/0 bandwidthkeeda muxuu noqday 64 okay let's see marka routing table-ki maxaa dhacay out 20 out 45 حرد مو جدا ayadoo laga bartay 30 labada dhinac ayadoo 30 laga bartay labada dhinac ay hadana maxay kala yihiin different bandwidth why ya xarifu ii sheegay midna isma bedelin midna waa isbedelay 4 waa isbedelay hadda 4 inta soo marooya ma taqaana 4 wuxuu soo marooya r3 then r1 yeah meesha soo marooya wuu isbedela hadda sababta ee 1 3 10 7 2 ee ugu soo baxday maxay tahay yaa xariifu ii sheegay yeah I know bandwidth waa bedela laakiin maxay ku dhacday ay balaqaadka ma jeceshiin qofkii ii sheega imtixaankaad uu diyaar u yahay 30% ka bixinaa that percent of your exam yeah wadada ugu sahlan oo barta linkiga ahayd hadda labada xabo yaa yar waxa yar 0.2 waxa yar Soomaa network 4 network 5 ayar 5 ayar 13 muhiimadu waxa waaye 30% gina hadii ay xalaalaynaysaan y oo numberkan isku bedelay waaye 30% gii aniga leh ma xasuusataan inaan ka soo sheekeynay RD wax la yiraahdo RD reported distance muxuu ahaa distance-gii hadaaya haysatay distance hadaaya haysatay muxuu ahaa let me copy numberkii hadaaya originalka ah numberka saan u ahay sooma numberkan aan soo qaado okay numberkii hadaaya saan u ahaa maano hadda maxaa sameeyey area-dana maxaa bedelay bandwidth-keedaan bedelay
once bandwidth aan bedelo systemkana waa isbedelaya, right? So wadadaana same bandwidth ay noo ahayd, if I'm correct. balanka muxuu ahaa report distance muxuu ahaa waxaada oo lagu daray wixii ay ugu soo gaaraysa, waxaaga oo lagu daray wixii ay ugu soo gaaraysa. يعني هذا calculation marka isku daray maybe ina aan khalda, laakiin k values marka isticmaalaysa yes way isbedeleen. maxaa wax xisaabteena 130.816 oo lagu daray the times 2 day tirada way badan of course, laakiin k values marka isticmaalayo isbedeleen. loo qeybay I think 1024. okay waa khalday, لكن we can do it. okay, so report distance ga marka keenay iyo value gaadu isbedelay in numberkaada inta uu ziyaada noqdo. hadda haddii aan ku laabto hadday wax ka bedelan interface kana ka bedel sooma, haddii aan ku laabto interface g0/0/0 then aan iraado bandwidth muxuu ahaa I don't remember wuxuu ahaa, laakiin let's try. dusho IP root of the dairaado yes kusoo laabteen hadda because labadaba ismatch gareynaya. muhiimadda marka waxay tahay labadan root haddii ay same yihiin, labadan haddii ay same yihiin topology gaa la gelinaa, map rasmiga yaa la gelinaa. ya ma dhacdaa meel laba qof inay isku xil ka hayaan? ma dhacdaa? logic ma tahay horta hore laba qof in hal meel ay xil ka wada qabtaan? hay yaa kale حرد انجينير عبد الرحمن لبقف ان هالميل هل درجه اما حل اي كودا قبطان لوجيك متى اوكي جنح حسين مية حرد ما يستاذ مي اوكي سو انيغو حليا marka ha reason I am the network administrator, right? I have full authority over the system I manage. صح؟ system is قاعد عندكم أنا authority كذا. هرمت ذاك شقيق كور. أنت أنا ألون أقوى إذا كذا أي ما نسوي نسوي وينها. إك. هرمت ذاك شقيق network admin. هم network admin سووا هرمت دوت. قف كسر معلق credential ولا user ولا. لما أنت المحكمة هذا سمعنا أنا manage كرينا that system. It means أنا ده حنوصل مانتا the other guy system كسال وريجاي. So أنت محايا استمرك لبضع successor سوا. مد كميدا أمرك topology اللي قلنا يا. حالنا show IBEIJRB topology. Okay. لبضع بواكنا. Formally سو قلي و one successor و same. Okay. 5 نمحاواي same. I know in as we دينيسان number كان كلامنا محاواي 12 كان محاواي for reported distance RD. عفوا feasible successor. This is a feasible successor and this is reporting distance. Okay. taas waa. haddii aan kala bedelana sidii ku dhacaysa. Okay. And this is how topology gaada u bedeli karto through the bandwidth. Okay. maxaa kaloo samayn kartaan filtering aan samayn kartaan is too advanced filtering. Any questions? Session can intaan ku eegay. Because you already know sida loo implement garaya. Wait. 5 extra minute aan ka qaadana. Okay, let's try inaan ku soo daro network kale inaan ku soo daro inta. Okay? So router kan waa diminayna. This router waa diminayna. Dimi. Then waxaan ku soo daraynaa serial interface
then waa daareynaa. Okay, kana sidoo kale waa diminaynaa, then waa ku dareynaa, then waa daareynaa. waxaan rabaa hadda dadka ilan hal meel ay wada joogaan ayagana wada same matrix waaye, laakiin markaan waxaan rabaa wixii inaan bedelo. Okay, this guy asna waxaan waa diminaynaa, interface dheeraadan ku darooya because routerka waa modular ya. Okay, then cable aan soo qaadanaya, interface kan iyo interface kan isku xiraya, serial 01 serial 01, then serial okay yaal isku qasin kan wuxuu ku xiran yahay serial 011 kana serial 01. Okay, networkan R1 iyo routerkan cusub waxay ku xiriirayaan for example 50.0.0.0/24 caadiya. Okay, midna 1 uu qaadanaya, midna 2 aa gelinaynaa, labadan waxay ku xiriirayaan 60.0.0.0/24. Okay, maxaana laga rabaa each interface inaan soo gelino IP-ga. waaye waa bobsiinaya back tracer qiyaamo yar aa jirta ya. So routerkaana ku dhufanaya R3. Okay, then waxaa ku dhufanaya config, then waxaa ku dhufanaya serial 10/0 oo godkaana, then IP-ga ugu talagalaa gelinaa maxaa waaye waa 60.0.0.1. Okay, subnetka bal aan ka dhigno 3255.0. interface-ka waa dansinya waa daareena. Okay, routerkaana galeynaa 011. Okay, 011 config-aa galeynaa 011, inta waxaa ku qoraynaa marka 6.0.0.2 shirkadeena shirkad kale kusoo biirto waa daareena. again maxaa galeynaa haddana interface-kan kala galeynaa oo ah 010 waa daareena first of all, then waxaa geleynaa 50.0.0.2 for example 255.255.255.0. waxaan ogow waa configuration-ka aan sameyn lahayn interface gal soo markaan advanced aa noqoteen waa yara bobsiinaya. Okay, then routerkaana galaya serial waxaan galaya 10/1, then waxaa ku qoraya 6.0.0.1 255.255.255.0 asna waa daaraya. linkigaygu waa ii daaray. maxaa liiga baahan yahay marka router 1 inaan galo. Okay, haddii meeshan aan ku qoro do show IV protocol maxaa arkaysaa in keliya aan advertise gareynayo maxay 31 20 iyo 1 iyo 4. meeshan maxaa ka maqan 50 aa ka maqan, right? So let's say waxaa leenahay router EIGRB 1 because topology-geena saasuu ku dhisnaay maano, EIGRB 1 uu ku dhisnaa. These are the key values. Okay, so maxaa u sheegaynaa network 60.0.0.0 u sheegaynaa. hadda haddii aad jeegareedo routing table-kaada maxaan soo galay 60 in advertise gareynayo. good, R3 aan galaynaa CLI waxaa leenahay router EIGRB 1 maxaa u sheegaynaa asigana what ma ay qabataan networkan 50 aa loo sheegayaa, router 1 qaladaa sameeyey, router 1 60 malaanaya. so waa ka tirtiraynaa, maxaa u sheegaynaa marka 50 waa troubleshoot dheer ay gelin leedahay ka waran hadda ya. so R3 marka wuxuu leeyahay 60 aan u sheegno. so waxaa leenahay network 6.0.0.0 right ega routerka markaa galo 50 aan u sheego division-ku kacaya, dual uu kacaya, algorithm-ku automatic uu kacaya. 60 hadaa u sheegana automatic uu kacaya. let's say routerkaana galeynaa dhahno ISP aan u bixino. Okay, waxaa leenahay router EIGRB 1 EIGRB router ID aan ka dhigno for example 666. Okay, network ID waxa uu sheegaya 60.0.0.0 inter markaa dhaw fiiri boom automatic network aana kacay. okay, kelimada boom inaa iska dhaafo waa saameyn kale ugu leedahay. waxa uu sheegaya haddana network 5.0.0.0 asne inuu kacawa hadduunan kicin something is wrong. okay,
so waxaan galaynaa config serial 1 50 ku jiro okay intana 50 ku jiro 60 leh let me check again 60 50 okay kan aan jeegrano you see this wrong meesha ka qaldanta waa meesha 50 aan gelinayna okay so hadda fiiri marka dualka automatic waa imaado see so hadda marka aan joogo routerka for example targetkayga waa 1.1.1.1 networkaas rabo inaan gaaro yaa successor ii noqonaya yaa feasible successor ii noqonaya caadi ahaan markii aad fiirisaan dhalinyaro qalinka markaa soo qaato this is the best path si aan u gaaro 1 soma wayga labaad maxay tahay inaan inta soo maro kadibna inta aan sii maro wayga saddexaad maxay tahay inaan inta soo maro again inta soo maro again inta aan soo maro meeqa wada haystaa 1 2 then 3 then 4 right so one targetkayga ah waxaan rabaa successorka inaan helo feasible successorka inaan helo alright leenahay godkaan galaynaa routerkan because wax walba loo soo advertise gareena show ib route network 1 targetkayga oo yahay hal mid inaan sameeyo waaye router EIGRP1 no auto summary inaan dhaho dhammaantood auto summary ka reebana because meeshaan number tiro badan ku jiraan oo wayna khasayaan okay so each and everyone waxa leenahay marka EIGRP giisa galeena router EIGRP1 no auto ودما ودار معايا this one نجي أسيجنا no auto كنا no auto router EIGRP1 no auto what محمود ميلا يا كان ها ايش هذا الجملة okay so hadda waxa leenahay marka show ib route targetkayga waa 1 inaan gaaro 1 ila xisaabiyo 1 meeqa tiro leeyahay all of these horta hore ayaga dhan waa same matrix number 1 okay why same matrix u yihiin hadda 1 oo kale waxaan ka baranayaa 50.1 aan ka baranayaa okay 2 waxaan ka baranayaa 50.1 aan ka baranayaa 50.1 yaa waa laankan waa why? Because it's my successor, it's my closest one. Yeah, أنا فاهم أنت. Successor كي و closest. So after 1 E2 E3 أي نقول same because destination كي ودوين. That's my successor. Okay? Feasible successor يا مرك. Feasible successor سي ندوا جس كان أوجارو. Yes, feasible successor يا 6.1 يا 6.1 this area فاهم مثلا سيشن كان انت انا كويجا ان شاء الله